السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مقالك وحان إذن كل وداقيا فائدة أولي هاي وح أخرسك وهبك مد ودوينك الله مر أقونتا مداسو مسكحة ونغنيسا القودينات wadamada horumaray bulshadooda waxaa lagu qiyaasaa aqoontooda hadba inta akhriskoodu la eg yahay ama ay wax akhriyaan. Akhrisku waxa uu horumar ku sameeyaa in qofku wax cabiri karo, sababtoo ah qofka wax akhriya waa asagoo la sheekaysanaya dadyoogii hore fakarkoodii. sidaa darteed akhriska oo aad joogtaysaa waxay naftaada u noqonaysaa horumar iyo guul, waana habka ugu wanaagsan ee aad maskaxdaada ku kobcin karto haddii ay kaa go'an tahay inaad noqotid qof dhisan. daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janalka, noo saar subscribe si ay noogu noqoto dhiirigelin. faa'iidada koowaad ee uu leeyahay wax akhrisku: deganaan. akhrisku waxa uu qofka ka dhigaa mid degan, sababtoo ah aqoontiisa ayaa mar walba kordhaysa iyo habfakarkiisa. 2. xusuusta. akhrisku waxa uu koriyaa xusuusta, waxaana uu ka daawo yahay xanuunka ku dhaca dadka waaweyn ee asaasaqa, waana mid aad maskaxdaada kaga ilaalinaysid xasuus la'aanta. 3. fahanka. akhrisku waxa uu kuu sahlayaa inaad wax walba oo aad qabanayso ama aad ku dhaqaaqayso aad fahanto. 4. maskaxdaada oo aad u shaqaysa iyo wax walba oo aad ku fakarayso ama aad hiigsanayso kormeyn lahayd. qofba qofka uu ka akhris badan yahay waa ka waayo aragsan yahay, ka aqoon badan yahay, ka fakar wanaagsan yahay qofka aan waxba akhrin. 5. kobcin. akhrisku waxa uu kobciyaa maskaxda. mar walba oo aad wax akhriso waxa aad u siyaadaya fakarkaaga iyo habdhaqankaaga nololeed. 6. waxa ay kaa dhigaysaa qof wanaagsan. muhiimadda ugu wanaagsan ee wax akhrisku leeyahay waa in ay kaa caawiso inaad kobcdo qof ahaantaada. 7. aqoontaada oo kordhaysa. mar walba uu akhriskaagu bato waxa sii badanaya aqoontaada, lagana yaabee in laguu soo raadsado talo ama waano, sababtoo ah waxaad tahay qof u saaxiiba akhriska iyo aqoonta. 8. waxaad ku baranaysaa dhibaatooyinka nolosha iyo sida aad uga gudbi lahayd caqabad walba oo kugu soo wajahda noloshaada, taas oo kuu noqonaysa inaad ka baratay cashar. 9. wax akhriska waxa aad ku baranaysaa dulqaadka, waayo wax sahlan ma ahan inaad soo qaadato buug kadibna aad akhrisato. waqti ku bixiso waxay kaaga baahan tahay dulqaad iyo samir. 10. wax akhrisku waxa uu yareeyaa stresska, maskaxdaadana waxa ay noqonaysaa mid u saaxiib ah kuna xasisha wax akhriska. inaad samaysato jadwal wax akhrineed aadna yeelatid dulqaadkeeda waxay kuu horseedaysaa inaad noqotid shaqsi kaga dhabeeya hamiga uu nolosha ka leeyahay. haddii aad muuqaalka ka heshay leeg saar, hana ka hilmaamin inaad subscribe saartid. insha allah waa inoo muuqaalkan muuqaalkeena xiga.